madaxweyne waa kii masalaha qabiilkiiyo umudnaanta reernimo mayalkiisa daadihin madaxweyne waa kii maalintay u daran tahay dadku wada majeertaan madaxweyne waa kii askaraad madow iyo bira'aan mushtarinayn madaxweyne waa kii maxasti iyo dadkoo qaday meydkii xabalaha maryihiina kala bixin xaajaqaadna ma tiid xaajaqaad bergii hore waa loo xilan jiray ninka waxa la oran jiray xaajaqaad ma yahay waa reerka xaajaqaadkiisa inoo geeya marka wax lagu yeesho madaxweyne waa kii maskabkiiyo kursiga jilan intuu xeelka baalmaro manaxaan sidiisii ku muraadsan danihii madaxweyne waa kii uu tun laysku maagiyo milil hore daweyn kara madaxweyne waa kii marinada siyaasiga muracayinta garan kara hadba dhalisu mooskood waa inaad meelun taagnaanine aadan dee ruushun la haysanin maantay dantaadu gashaad maraykan qabataa wuxuu xildhibaa qofkii inuu wuxuu xilanayay xaqiiqdaas dadka beedho dibad ka xanuunsata xusuuso shalay u noqo suugaan fara badan baan xisbiga kulmiye waqtigaa u sameeyey waxaa ka mid ahayd inagu kulmiyeynu nahay waxaa ka mid ahayd heestii la odhan jiray kulmiyo hayoona hogaamiyey ku hagaagsantee awrka hinjiyay hees kale waxay ahayd kulmiyo u codee waxaan sameeyey heesihii ti siilaanye ahayd haddii ilaahay ku roon yahay waxbaa la hilaadiyaa talada waa la hojiyaa hal waa loo awrdayaa hubaal baa lagu raraa afkaagoo lagu hadliyo aqoon baa lagu hagaa waxay hawraare tidhi siilaanyana waa hoggaan haliyey iyo hooda samee waa inaad ama xeer ku qabtaa ama dhaqan ku qabtaa qod xarig yeelataa haddii aad xarig ba yeelan weydo oo ummadda la yidhahdo xarig ma laha ninkaas ceeb ka weyn oo aan jirto garan maayo haddaan xamar sururiyo xogaal tala loo xulayn wadaan xakab loo adkayn miyaa xaragadu labta xishoodkaba kaa noqon xil wuxuu dhibaa qofka xishoonaya miyaa xaragadu labta xishoodkaba kaa noqon allahayow qarniga lagu gallado horumarkii geeya allahayow wixii ay gasho iyo muujo gududeeda allahayow gargaarkaaga sii gooman iyay noqone ayaan horta anigu aan leeyahay intaan boorama tagaabaan anigu berbere iyo hargeysa sanaag soo booqan laayo laaskaan ku bogsoon laayo laaska ayaan ku bogsoon laayo burcaan ku bariisan laa Somaliland waa guddoon shacabku gaadheen allahayow qarniga lagu gallado horumarkii geeya allahayow wixii ay gasho iyo muujo gududeeda allahayow gargaarkaaga sii gooman iyay noqone ayaan horta anigu aan leeyahay waxaan ka mid ahaa sidaad ka warhayso waan ku dhex jiray siyaasadda Somaliland waliba Scandinavian xisbiga kulmiye afayeenkiisii raggii aasaasay Scandinavian ka aasaasay baan kamid ahaa suugaan fara badan baan xisbiga kulmiye waqtigaa u sameeyey waxaa kamid ahayd inagu kulmiyeynu nahay waxaa kamid ahayd oo cabdin cali xamar uu qaadi jiray waxaa kamid ahayd heestii la odhan jiray taa kulmiye ay inagu kulmiyeynu ahayd bay ahayd heesta labaad waxay ahayd hees nimco degan ay qaado ahayd kulmiyo hayoona hogaamiyey ku hagaagsantee awrka hinjiyay hees kale waxay ahayd kulmiyo u codee waxaan sameeyey heesihii ti siilaanye ahayd haddii ilaahay ku roon yahay waxbaa la hilaadiyaa talada waa la hojiyaa hal waa loo awrdayaa hubaal baa lagu raraa afkaagoo lagu hadliyo aqoon baa lagu hagaa waxay hawraare tidhi siilaanyana waa hoggaan haliyey iyo hooda samee horseedkii nabadgelyada anigu ma odhanay hawraar baa tidhi halkaa markii aan taagnaa haddana marna kamaan tegaynin in aan dhex u noqdo xisbiyada siyaasadda waayo waxa la yidhahdaa suugaantu waxay ka turjumtaa dareenka iyo wacyiga lagu jiro ee bulshada ay ku jirto afkaaga aan lagu qabay baa la odhan jiray aan kaa boobe mawduuca aan u socday intaanad u guda gelin waqtiga oo nagu celinayo awgeed waxay u soo dhacday markaad mawduuca dhex gashay mawduuc ahaa madaxweyne waa kii waxay ahayd nin la yidhahdo Cabdilaahi Geeljire oo aanu saaxiib ahayn oo kulmiye raggii idaacadda Horyaal iyo Cabdilaahi Geeljire wuxuu maalin soo qoray maanso la odhan jiray madaxweyne waa kii deedna waxay ku soo dhacay inaan isweydiiyo dhado talow madaxweynaha haddii su-aasha in laga jawaabo ayay noqonaysaa dabeedna guudka imika ma doon inaan ka wada mariyo waynu qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo studio ku qaban doonaa haddii ay waqtigu inoo saamaxo laakiin waxay ka bilaabanaysaa inaan isweydiiyo kawu noqonayo marka way dheer tahay wuxuu yidhi macnaha gabay murtida iyo sarbeebaha maahmaahda lagu ladhay nin kasta ha mariye waxa uu ku mudan yahay maansida hoggeeda iyo suugaanta muulka sida loogu meelday maqoraysi loo dhuuq miile laga dhigay badi la isku maandhaaf murankeed la sixi waa malaheedu yaabdhali nin kastaaba maankii isla noqoy mudh iyo toos madadaalo weydiyo iska maararow noqoy haddaan macallinkeeda iyo halabuurka mudankee beriya soo mushaawiray madalbu ka xaadiray masalaana loo dhigay cidi kaga maqnaanay dadku wada macsuun yahay meertada xilkeedii mase loogu siman yahay markaba wada shukaama midba dhinac u toogsaday iga dhimay macaankii xaajada maroorkaa wuxuu yahay masaalkeed inta uu muducigii ku markhaatiga sawkii madacali miladii ku xaabsaday arrintii malkada tiil ee loo mudaysnaa geeljirow midkaa tidhi anigaan ma suugayn madaxweyne waa kii maatada daryeelaha madaxweyne waa kii masalaha qabiilkiiyo umudnaanta reernimo mayalkiisa daadihin
madaxweyne waa kii maalintay u daran tahay dadku wada majeertaan madaxweyne waa kii askaraha madow iyo bira aan mushtarinayn madaxweyne waa kii maxasti iyo dadkoo qaday meydkii xabalaha maryihiina kala bixin madaxweyne waa kii maskabkiiyo kursiga jilan intuu xeelka baalmaro manaxaan sidiisii ku muraadsan danihii madaxweyne waa kii maaha soo baxay murti kale ku dari kara hadal kale macayn kara madaxweyne waa kii madaxweynaha laftiisu waa inuu suugaanta wax ka yaqaan ها وينو يراهدا اسن waa wada lixli taariikh baxday ma ahayn waynu xigmad baa baxday maalinta waa ila maanta waa hala islaahiyo marka waynaanu noqon baad leedahay nin ka maran oo dhan kasta madaxweyne waa kii uu tun la isku maagiyo milil hore daweyn kara yani madaxweyne waa kii marinada siyaasiga mulciyiinta garan kara hadba dhalisu mooskood waa inaad meel u taagnaanine aadan de ruush u la haysanin maantay dantaadu gashaad Mareykan qabataa danta bulshadu horta Soomaaliland waxay u qaabatay nidaamkan xisbiyada badan ee multi party systemka la yiraahdo waxaynu u qaadanay in wax la kala doorto reer baad saddex inan joogaano saddexda inan baa la yiraahdaa hebel baynu talada u dhiibanayna sida aawadeed waxaynu u samaysanay inaynu hadba kii inoo dhaamin karaya aynu ku dhaansanno haddii kulmiye la salugay dee wadani baa aynu ku baxsanno eeg nin saddex xisbiyada Soomaaliland iyo ururadan jira mid qarannimada iyo qadiyada Soomaaliland ka soo horjeeda ma jiro nin waliba ninka kale waxa uu leeyahay ana kaaga wanaagsan anigu waxaan leeyahay awrka laga ilaaliyaa inuu dheeliyo marka haamaha la saarayo ee reerku ama uu loo dhaanka la doonayo ama haddii Ilaahay ku rooyay uu guurayo ayaa laga ilaaliyaa waxaynu u baahanay miisaan oo dad qaranku waa lagu dhaqan yahay waa inaanay galbeed u ciirin waa inaanay bari u ciirin waa inaan inta dhexe noqonin waa in miisaankii ummadii wax wada lahayd la ilaaliyo xildhibaanadani waxa ay xilka loogu doortay waxa loo dhaariyay qarannimo looma dhaarin qoys iyo qabiil iyo deegaan uu ka yimi oo kaliya wuu u hadli karaa deegaankii uu ka yimi laakiin qarannimada markay taagan tahay arintu waxa weeyaan mowqif qarannimo ninku inuu qaato yani nin odayaho la yaqaanay baa wuxuu oran jiray halkaana aniga ale fartaana umada ale waa wixii aad cuni karaysaan si kastaba adeeda caruurin xaaraanta ka ilaashanaynin halkiina wixii aad marin karaysaan mariya laakiin fartaa umada ale qarannimada wada jirka is ilaalinta isku wadida umada isku haynteeda nabadgeliyadeeda xasiloonideeda iyo isku wadkeeda uun u taagnaada baan oranayaa gole waxa u tihiin yaan loo oranin war kuwan maxaa inoo keenay yaan loo oranin kuwani wax garan maayaan yaan loo oranin waa dhalinyaro tala seegtay war talada umada leh umada wixii isku haynayay wixii ay noogu suura gali lahayd aynu samaysanno waxaan doonayaa inaan in yar fasilo xildhibaanka muxuu yahay xildhibaan waa qofka xilku dhibayo qofka xildhibo ayaa xildhibaan loo oran jiray dadkii horena waxay oran jireen war ninkaasi xaaji qaad ma yahay markuu xaaji qaad noqdaba loo tagi jiray oo loo oran jiray waa xaaji qaad xil baa dhiba qofkii xildhibo ayaa xildhibaana haddii aan xilba ku dhibay oo waxa doonto aad samaynayso xildhibaan ma tiid xaaji qaadna ma tiid xaaji qaad bergii hore waa loo xulan jiray ninka waxa la oran jiray xaaji qaad ma yahay waa reerka xaaji qaadkiisa inoo geeya marka wax lagu yeesho hees yaroo nimcayaasin qaato ayaan ku sheegay haddaan xeerbeegti iyo gar loo wada xaakin noqon xushmayn lagu wada dhaqmayn miyaa xilli laga gudbaa u baahnaa xaaji qaad wuxuu xildhibaa qofkii inuu waxu xilanaye waxu xilanaye xaqiiqdaas dadka baydho dibad ka xanuunsataa xusuuso shalay u noqo maxaan xeer koo dhigtaa xumaantiiyo sawdigaa wanaagaba kala xadhay haddaan xama sururiyo xogaal tala loo xulayn wadaan xakab loo adkayn miyaa xaragadu labtaa xishoodkaba kaa noqon war ma mas-uul baan ahay oo kursi baan iskaga fadhiyaa ummadi leedahay ilaa adigu malihidi ayaa dadka loo sheegayaa haddaanu qofku la iman wixii looga baahnaa iyo dadnimadii iyo dulqaadkii iyo cadaaladii xil wuxuu dhibaa qofka xishoonaya miyaa xaragadu labtaa xishoodkaba kaa noqon haddaad xaragoonayso oo aanad xaragadani waxba kaaga hoosayn xaragadu xaraga maaha xaragadu waa xishoodka waa inaad ama xeer ku qabtaa ama dhaqan ku qabtaa ood xadhig yeelataa haddii aad xadhigba yeelan weydo oo ummadda la yidhahdo xadhig ma laha ninkaas ceeb ka weyn oo aan jirto garan maayo inta xildhibo waxaan ka codsanayaa inta xildhibo in ay isku dayaan inay taariikhda maanta wax wanaagsan ummadda uga tagaan ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu dadkeenna
beerkooda burcada soo mariyo oo waxba dadkaasi ku dhiman maayo sababu ku dhimanayaa ma jiro maanta ina ka dhimanayo dhalintaa wada quruxda badan ina ka dhimanaysaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu masaa'ibka alla ina dhex keenay ina ka saaro ina ka joojiyo maanta markaan halkan soo soconay afar kelmadood aan idhi baan maanta kaga baxaya waay maxaa tiri intaan boorama tagaabaan anigu berbere iyo hargeysa sanaag soo booqan laayo laaskaan ku bogsoon laayo laaska ayaan ku bogsoon laayo burcaan ku bariisan laa saraar baan beeran laa baadroorkaan qodan lahayn ilaahow bela naga xijaab baan idhi ilaahow bela naga xijaab marka anigu aan sugaanta tirinayo dadka dhex baan u ahay xusbiyada iyana waxbaa lagu saxaa xusbiyada waxbaa lagu saxaa dee laba qaalinoo geel lagu daray baa loo kala dooraa geel lagu darayo ayaa loo kala dooraa nolosha haddii aan marba laisberber gelin oo wax loo kala dooran wax la kala dooran oo nin un la daba socdo qiimo ma yeelato kaa la daba socdaana waxbuu qarribaa